ba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada adoos jaligadka weyn ayaadku ma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata jaligadka weyn ayaadku ma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada waxaan jeclahay inaan ila soo dhaweysaan oo si weyn ila soo dhaweysaan gudoomiyaha jaamacadda Dr. Maxamed Cali Maslax suu barnaamijka inoogu furan aad iyo aad baan ugu idinka mahadcelinaynaa soo ajiibidda dacwadan jaamacadda Boosaaso ay idiin fidisay maalinta sanadlaha la talinta ardayga ka soo qalin bedelanaya waxbarashada aasaasiga una soo qalin bedelanaya waxbarashada tacliinta sare oo runtii u baahan talasiin iyo hagid aad muhiim u saad ogtihiin maraaxisha daraasigu waa kala duwan tahay qofku marxaladda aasaasiga wuxuu soo maraa waa marxalad joogto dhammaan ardadoo dhan ay wada maraan qofka kale kaga duwanna uusan jirin dugsiga hoose laga soo bilaabaa kan dhaxaa lagu soo xijiyaa kan saraa la soo maraa laakiin marxaladda tan oo kale marka la joogo waa marxalad qofku runtii uu u baahan yahay mustaqbalkiisa dhan meesha uu ku hagi lahaa waa marxalad la-inka maalinta uu qaato uu noqonayo mustaqbalka oo dhan meesha uu ku jihaysnaan doono qofka doorta tusaale ahaan hal takhasus oo ka mid ah takhasusyada wax lagu barto mustaqbalkiisa oo dhan laynkiisu halkaas uu ahaan doonaa oo waxay noqonaysaa qofkaasi meesha ugu dambeysa haddii uusan marka koowaad marka si saxa u dooran meesha uu ku habboon yahay naftiisa uu ka anfici karo dadkiisa uu ka anfici karo dalkiisa uu ka anfici karo waxay noqonaysaa in uu gaaro jahawareer iyo in laga yaabo inay noqoto mar kale inuu dib ugu ceshado suu u saxo careerkiisa iyo laynka uu maraya ee waxbarasho si marka ardayga marxaladda tan kala guurka ama kala muxuu ahaa bedelashada uusan khalad weyn ugu dhicin jaamacadda Boosaaso waxay astaysay muddadii ugu dambeysay oo dhan in sanad kasta marka waqtigan oo kale la joogo ay ardada tala bixin joogto oo fuula ka siiso oo dhammaystiran waxbarashadooda tacliinta sare runtii barnaamijkan waxaa ka faa'iideysta arday kasta oo doonaya inuu dhigto jaamacad ma aha inuu dhiganayo jaamacadda Boosaaso oo kaliya laakiin arday walba oo jaamacad bilaabaya gudaha dalka ka dhiganayo dibadda ka dhiganayo waa barnaamij yacni loogu talagalay ka mid barnaamijyada community outreach ee jaamacaddu ay u qabato bulshada looguna talagalaya arday walba in uu bal intuu faham ka yeesho uu saxdo takhasuska iyo laynka uu qaadanayo marka kan oo kale waa marka aan muhiim aysan ahayn ama aysan ahayn inuu saameyn kugu yeesho saaxiibka meesha waxa uu baranayo marka kan oo kale waa marka uusan waaridka uusan tilmaami karin oo hagi karin waxa aad maaragtaa muxuu ahaa baranaysa uusan ku dhihi karin waxa aad waa laga yaabaa marka dugsiga hoose la joogo inuu dugsi hebel dhigo iyo dugsi hebel iyo ku doortaba mid maaragtaa muxuu ahaa markaas waxaa laga yaabaa ama transportation intuu jiro ama macallimiinta oo informationka ardaygiisa ka heli karo laakiin waxbarashada iyo maadooyinka ay qaadanayaan waa the same subjects waa isku maadooyin laakiin marka kan oo kale waa marka ay ku xiran tahay ardayga iyo awoodiisa iyo doonidiisa sidaa daraaddeed waxaa muhiim arday walba waqtiga kan oo kale isagoo isku xiraya muxuu ahaa allihiisa weyn isagoo oo la tashanaya dadka maaragta muxuu ahaa akaademiyiinta iyo aqoonta leh isagoo oo tijaabinayo oo fiirinaya naftiisa war maxaad ku fiican tahay maxaad ku maaragta muxuu ahaa wax ka keeni kadhaa maanta naftaada maxaa ka anfici kadhaa maxaa marka aad baranaysa xiisaynaysaa oo aad maaragta muxuu ahaa aad naftaadu ay u baahan tahay oo ku raaxaysanaysaa oo horey ugu sii soconaysaa waxyaalahaasoo dhan waxay ka qayb qaadanayaan runtii maaragta muxuu ahaa maanta oo kale waa maalinta u baahan tahay saa inaa u fakadhi waxaana ka qayb qaadanaysaa inaa mustaqbalkaaga dhan maaragta si fiican oo hagaagsan u jahaysid arrimaha noocaas ee loo baahan yahay darteed
waxaa jaamacaddu qorshaysaa sanad walba in maaragta markaas cidda la isleeyahay ardada waxbay ka faa'iidi kadhaa talooyin muhiim ay siin kadhaa khibrad iyo aqoon u leh in sanada kan oo kale ay la kulmaan bal ay dhegaystaan oo ay fahmaan talooyinkan oo kale marka halkan oo kale marka la joogo waxaa muhiim ah in aad si fiican loo weeleeyo si fiican loo dhegaysto si fiican aad maaragta muxuu ahaa fakar iyo tartiib aa ula noqotid naftaada ah insha allahna aad markaas aad saxatid waxa aad baranaysid intaa kadib oo hadafka iyo ujeedka maaragta muxuu ahaa maanta oo kale ah waxaan rajaynayaa insha allah kawaadirta halkan ka hadli doonta maanta talooyinka ay idin siinayaanin inay wax ku ool noqon doonaan idinkuna waxaa ka muuqata oo aan maaragta muxuu ahaa runtii aada ugu faraxsanahay intaasoo arday maanta inay inta yimaadaan ay doonayaanin war aan bal fahanno maaragta muxuu ahaa bal talooyinkaan u baahannahay waxaan u baahannahay aanu ka qaadano insha allah waxaan rajaynayaa marka in aysan hadallada iyo kelmadaha la idin dhihi doonaa ay ku dhici doonaan in maaragta muxuu ahaa udunun saaqiya oo runtii aad maaragta si fiican aada uga faa'iidaysan doontaan insha allahu tacaala intaa kadib jaamacadda boosaaso runtii mar walba waxay u taagan tahay u samaysan tahay ahdaafteedu ay tahay in ay ardayda tacliinta sare wax weyn ka bedasho halhayska jaamacaddu waxa weeye building better community oo loola jeedo qofku marxaladda uu joogo marxaladda kusii xigta ee ka wanaagsan inay ka qayb qaadato inay u bedasho waxay leedahay takhasusaad kala duwan oo qaybaha maaragta muxuu ahaa aasaasiyaadka runtii waxbarasho loo baahan yahay tacliinta sare ee hadda baahidoodu taagan tahay mar walbana waxaa lagu saleeyaa sanad kasta waxaa lagu saleeyaa mar walba baahida aynu haynaa maxay tahay bulshadeennu maxay u baahan tahay maxaa ina ka dhiman oo hadda haddii wixii kale la bartay ay u baahan tahay maaragta in loo soo kordhiyo sanad walba ma aha laakiin sanadka kan oo kale waxay jaamacaddu soo kordhisay runtii fiiliyo ka duwan muxuu ahaa fiiliyadii hore oo la baranayay loona arko baahidoodu inay maaragta tahay baahi bulshada ee joogta ah waxaan rajaynayaa insha allah idinka laftigiinu inaad noqon doontaan dadka ka faa'iidaysta waan idinku soo dhaweynaynaa intiidina doorata jaamacadda in aad heli doontaan inayna ballan qaadayna insha allah ilaah idankiis waxbarasho maaragta tayo leh ardayguna uu qeybta ugu muhiimsan uu ka yahay weyga waxbarashadiisa waayo levelkan oo kale ma aha levelkii usha iyo maaragta laanta iyo canaanta iyo macallin hore taagan oo le arday soo dheeray xiisadii waqtigeedii waa la gaaray markan oo kale waa adult learning waa meesha ay tahay ardaygu inuu isbedelka kala yimaado oo uu ka sameeyo insha allah waxaan rajaynayaa marka intiina nagu soo biidho aan rajaynayno inaa in badan oo ka mid idinka aad kusoo biiri doontaan jaamacadda in aad maaragta muxuu ahaa waxbarasho tayo leh aada heshaaniin runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waana idinku hambalyeynaynaa soo dhammaynta iyo dhabar adeyga usoo dhabar adeegteen muddada dheer waxbarashadii maaragta muxuu ahaa aasaasiga ahayd 12 sano iskuulla soo fadhiyey maanta yaysan khaldamin doorashadaadu yaysan khaldamin waxa aad baranaysid in aad si saxa u dooratid yaysan ku hodin in aad saaxiibkaa wuxuu jecel yahay laakiin marka adigu mawhibo kale oo kaga fiican oo meel kale haddaad la tagtid aad leedahay aad samaysid aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan rajaynayaa insha allah ilaah idankiis in aad caawa wax badan dhegihiina ku dhici doonaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu hadalladiisaas iyo kelmadihiisaas qiimaha badan oo dhiirigelinta iyo talada isugu jiray barnaamijkan haddaan dib inoo xusuusiyo waxaa la yidhaahdaa tusmayn iyo tacliin tala wadaag ujeedkiisuna waxa weeyaan in xog ardayda danaynaysa inay waxbarashada sare kusoo biiraan in xog la siiyo jaamacadda boosaaso sida doctoorku sheegayay halkudhiggeedu waxa weeyaan building better community waxaan soo saaraynaa mujtamac ama community fiican oo dhisan oo qurux badan barnaamijkeena galabtana taasuu daaran yahay jaamacadda boosaaso mar walba waxay u taagan tahay dhallinyarada soomaaliyeed inay jihayso kuwa jaamacadda dhigta iyo kuwa dhigan labadaba waayo mas-uuliyad ayaa naga saaran waxbarashada sare jaamacaddu waxay aada uga shaqaysaa waxay leedahay kuliyaad mar dhow layniin sharxaayo oo ku dhisan baahiyaha suuqa ka jira waxayna ka shaqaysaa ardayga ka soo baxaya inuu helo xirfadda uu leeyahay oo ardaygu maalinta uu jaamacadda ka baxayo inuusan shahaadada keliya qaadan laakiin waxa ugu qoran shahaadada xirfaddeeda inuu leeyahay barnaamijyadaas ayaan sii sharxi doonaa waxaan jeclahay inaan u yeero
mid ka mid ah xafiiska diiwaangelinta jaamacadda waxay la soo dhaweynaysaan Siciid Cabdi Doonyaale oo inoo sharxaya takhasusada jaamacaddu bixiso. waqtiga oo gaaban waxaan si toos ah u gudageli doonaa kuliyadaha jaamacaddu ay bixiso si guud sababta ay tahay inay ugu soo hormaraan in kuliyadaha jaamacadda la sharaxaa waxa weeye in ardaygu tala soo jeedinta ka dambaysa ka hor uu og yahay kuliyadaha jaamacadda ka baxa si uu taladiisa ugu waxa weeye ku qotomiyo ama waxa weeye buddhig uga dhigo. kuliyadaha jaamacadda ka baxa guud ahaan waa 22 departmenti. kuliyadaha jaamacadda ka baxa waa 5 kuliyadood waaweyn waxaana ka baxa qaybaha ama departmentska 22 departmenti oo kala hoos taga 5 kuliyadood. kuliyadda caafimaadka waxaa hoos taga 6 departmenti. kuliyadda ganacsiga iyo maamulka casriga waxaa hoos taga 5 departmenti. kuliyadda cilmiga bulshada waxaa hoos taga 5 departmenti iyo 3 departmenti oo diblomooyin ah. sidoo kale kuliyadda waxa weeye computer science and technology oo computerka iyo teknolojiyadda casriga ah waxaa hoos taga 1 departmenti oo computer science ah. sidoo kale kuliyadda shareecada waxaa hoos taga 1 departmenti oo usul fiqh ah. Doonyaale Marweyn aad buu mahadsantihiin. Doonyaalena aad u mahadsan yahay. wuxuu inoo sharaxay takhasusada kuliyadaha iyo takhasusada marka kuliyad walba waxay yeelanaysaa takhasus hoosaad tiro badan. barnaamijkaas oo faahfaahsan xafiiska diiwaangelinta insha Allah ka heli doontaan. galabta waa galab khayreysan weeye inay barakaysan tahay xidajawiga ka dareemaysaan. si aan u soo koobno marka waxaan rabnaa qofka halka soo istaagaya inuu waqti yar qaato insha Allah. intaana soo dhaweyn qofka ku xiga waxaan jeclahay barnaamij yar baa inala wadaagaya. moogtiin jaamacadda Boosaaso waa jaamacad aad u furfuran dhalinyarada mar walba soo dhaweysa. arday uu qaab uu fikirkiisa xor u yahay uu qayb kaga noqon karo. qof walba hal abuur leh oo karti lehna si yar uu xitaa tiimkeeda kaga mid noqon karo. sida awgeed maadaama dhalinta dhan soo wada dhaweyno waxaa jira barnaamij ay jaamacaddu samayso oo scholarship waxaa isugu jira full scholarship, half scholarship iyo discount. barnaamijkaas marka waxaa loogu kala faa'iidaystaa sida loo kala nasiib badan yahay. waxaan u malaynaa dadku isku nasiib ma ahan. waxaa jiraya marka tiim ayaa inii imanaya waxaa rabaa qaabka barnaamijkaas u dhacay ayaa inii sheegaya. deetana inagoo hawsheena wadana waraaq yaraa lagu dhiibayaa bis magaca waxaa ku qoraysaa nambarkaaga bis. marka waxaa barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay iyo shuruudaha hal mar inii dulmaraya kadibna hawsheena kusii soconaynaa. barnaamijka tijaabi nasiibkaaga ayaa la yiraahdaa. faham guud haddaan inaga siiyo waxaa laynii keeni doonaa insha Allah waraaqo aad nambarkiina ku qorin doontaan. shaacinta guuleystayaashu waa marka ugu dambaysa macnaha hadda nambarkiina qoraysaan dabcan waa la ururin doonaa. waxa weeyaan gadaal ayaa qofka guuleysta laga soo sheegi doonaa galabtii looma sheegayo way macnuhu. waxaa ku dhawaaqa guuleystayaasha gudoomiyaha jaamacadda isla galabta miyaa express oo okay markaa ka sii fiican tahay. gudoomiyaha jaamacadda ayaa insha Allah guuleystayaasha ku dhawaaqin doona. tirada guuleystayaashu waa 77 isugu jira scholarship, full scholarship, half scholarship iyo discount. 77 waa number aad u badan. qofka nasiibkiisu wuxuu yahay unba ka haray oo maleynaya. way number aad u badan 77 arday. waa tahay qof walba waraaqda loo dhiibo nambarkiisa ha ku qoro hana ku rido bacda ay wadaan guddiga brotocoolku. macnaha waraaqa lagu dhiibaya nambarka ay ku qoraysaa deetana maaragtay guddiga brotocoolku waraaqda ay bacda ay la wareegayaan tartiib ugu ridaysaa. shuruudaha marka aan inii dulmaro barnaamijkan tijaabi nasiibkaaga aad u fudud yihiin mana badna. si khaas waxaan jeclaa inaad dhegaysataan si taxadar leh. number 1 waxaa la yidhi waa inuu yahay arday sanadkan dugsiga sare ka soo baxay. waa ina fresh tahay ardayda hadda sanadka jaamacadda kusoo biiraysa. waa shuruudda koobaad. shuruudda labaad waa inuu koobta jooga ardaygaas macnaha waa inuu meesha joogo weeyaan. xariif maqan looma qorin karo weeye macnuhu.
marka waa in ardayda meesha joogto waana ka mid tahay waa shardiga labaad waa in nambarka isagu uu leeyahay nambarka qaraabada kuma qorin karto nambarkaaga ku qoro khaaska qof walba wuxuu qorin karaa hal nambar waa ognahay Soomaalidu ay nambaro badan tahay marka ha oran hadaa kan ku fiil garoodo kan saa ku hesho hal nambar oo koorka ku ah kan ugu muhiimsan ayaa ku qoraysaa waraaqda warqadii la kala jeexo way gubanaysaa waraaqdaas marka lagu dhiibay iyadoo sideeda ku qor dhinaca banaan dhinaca shaabada kaga taala dhinaca shaabada ma dhinaca kale teedana isku laab waraaqda hadii ka jeexjeexanto macnaha way gubanaysaa waa tahay shardiga ku xiga waxa weeyaan numberku waa telephone numberkaaga waana saas ula fahamno qof walbana waa inuu ku qanco dabcan nasiibkiisa kii ka hara maaragtay iyo kii helaba qodob ku xiga waxa weeye ardaygu kulliyadda uu nasiibka u helo ayuu keliya scholarship ku dhigan karaa ha macnaha kulliyadii kuu soo baxda uun baad xaq u leedahay inaad dhigato qodobka ugu dambeeya wuxuu ina leeyahay qofka helo scholarship haddaad scholarship hesho qof kale uma bedelin karto macnaha soo ma arkaysid adiga unbaa xaq u leh ilaa nasiibku adiga ayuu ku siiyey waxaan filayaa inay shuruudahaas u cad yihiin marka tiimkaas inay hawshooda qabsadaan ayaa rajeynaya waxaana codsanayaa barnaamijka markii la qaybinayo inuusan wax saameyna ku yeelan xafladeena qaabka u soconayso waraaqdaada tartiib u qaado si akademiga waxaaga hoos ka qoro isku laabo iska hayso qofku markuu meesha soo maro qolada bacda maaragtay wareejinaysa ku rid laakiin hadalka iyo maaragtay buuq iyo maxaa qortaa iyo sheekadaas inaga ilaasha barnaamijkeena ayaa hore ugu soconayna barnaamijku mudanayaal iyo marwooyin qaybo kala duwan uu leeyahay aad buu u xiiso badan yahay caawa qaybo waxaa jiri doona dhiirigeliyaal heer gobol ah ay noo iman doonaan insha allah barnaamijkeena ayaan kusii soconaynaa soomaalidu waa dad suugaan leeya waxaan jeclahay inaan u yeero mid ka mid ah mahigaan tiimka mahigaan ee suugaanleyda ah waa cali ciise siciid cali la soo dhaweeya gabayga waxbarashada ku saabsan ayuu halkan igaga kicin doona بسم الله الرحمن الرحيم هذا يا نوقف فرحسنا هاي قلبتها إني هرت هذا كم مقدان يعني ذات كان أنت ترى لك أو لما أنت طلاب العلم رج إيو عمرنا يسوي كذا وحنو مهد علينا يا جماعة عضب وصاص أو فرصة داني سيسينا ذات كان كلها الله وحنا وشيء وعن كلا يا واحد بدن أو ترابة ولا إذا نرندونا ويدين دميهين مركا وحوجي تحة أيان إذا لو ذاك يا إن شاء الله تعالى أو للرجالين waxbarashada ah inaynu cilmiga ku dadaalo oo aynu cilmiga waqti badan gelino waynu ognahay waxa lagu kala hormaray maanta waxa weeye waa cilmi weeye qolo walba inta ay cilmiga waqti gelisay oo ay waqti u hortay ayay horumar gaadhay ama ay dadka intiisa kale ka horeysaa marka si aynu ummadahaas uga mid noqono inaynu cilmiga dadaal badan gelino ayaa laynoo ka baahan yahay gabayga kanina inuu ku dhiiri gelinayaa oo magaciisa la yiraahdo cilmi goor gaaban ereygeedna gaaban waan iska bilaabanayaa bismillaah axmed cod gabay waa ninkii caadilkay baro ee cilmi weeye aan eebbahay caalamka u simin ee dadka qaar ka cayre kuwana ka cokanaysiiye waa la iscabeebina darbaa loo cimaamadaye cindallaahi deeq laga baxsho iyo waa sidii calafe ninkaan caynadayda u aqoon yaa ku ciilqabahe haddaad si caalim tahay ood murtida caynad ka ahaatay waa inaadan gooruu carjabay soo carcooriyeyne maalintii cadshaan loo yahaa la cuskiyaa meele gooruu cusay beelay oon cidi danaynaynin haba ceeb la-aadee haddaad calamada u taagtid ciyi waa ka daalaciyo noqoy sida cadquureede cayaarna kuma habana iyo inaad deel u curisaayo cisigiisu waa inaad marxalad culus ku beegtaaye haddaan sababi kugu cayrinayn waa iska caadgarore anna muddan ka caga jiidayey oon caajis ka ahaaye haddaanse camaladaydii hore iyo hawshii soo celine aan balcaawo dayo oo anigii saban ka caagnaaye maantoon 20 dhaafay oon halal ciraa yeeshay ilaa cunug ahaantii anoon ciidanimo gaarin cawrada jaaligu waxay ahayd cudur maguuraahe caam ahaan adduunyada la waacida sideenaahe nin kaleba cilmuu taransaday iyo hawl caqiibo lehe waa taa cadceed iyo xidkaha coonka loo tegaye aadmigan cantaray
dowladahan coobbakarinaya carta iyo wartaan uumiyuu la cajabee qoofay waa calaamo kibiraani iyo camal ninkaa weyne waxaa cunaha laysqabanayo iyo cagajuglayntaasi awood buurka culus maaha ee waa caqliga maale wax cabiidsi qaba waa ninkii maanku caag yahaye cirka loo baxay iyo horumarkaan la isku cawriyayo cayaar laguma gaarine rag bow galay cadaabaaye maskax caafimaad iyo kasmaa loo cawaansadaye dadkayguna calaacalaha dhigay sida baha cayreede tuugmada caddaanka iyo baryada ciirsay weligiisa hadba cadarku meeshuu ka jiro subaxu ceelduuriye cindigaba ma gelin maal inay cogara haystaane ciiddooda waa laga qarshiyo cududa toodaaye haddaan reero kala caawinaan waa u calafseege dad ninkii cajami sheegta iyo carab mid reeraysta waagii casaadaba naflaagu culuum ugube cashar adiga un baan ka baran cibirka waayaaye cilmi maadi iyo hawladoon malihid cayntoode caqiidiya waxyana waxaad ka tahay caamo dhega weyne war maxaa kuu caqiibaa waxbaa la ictibaarshaaye maxaa kuu caqiibaa waxbaa la ictibaarshaaye ayaa xuba cabbaar kuma xasilo balow cadgeedoode cagaar iyo waxaan doog ahayn calal iskoodiidiya maxaa adiga ceerida ku dhigay la cajab uunkiiye nimuu caad ka maray oo indhaha ka ciladaysnaaday casar dheere kiyoo dudada ku cawood taag waayey cadda socodka meel kuma tagiyo arag carceere ahe intaan caamanimada iyo jahliga la ciidi jiidayno inay ceebi naga mayranto uunku naciseeyo waa calaacal tima leh iyo waxaan cidi ka sheekayne afartaa tixdaan curin jiray iyo miro cudoon weyn dhee calcalyada xareedoo da'day iyo roob cir soo shubay dhee ciraab kalena dhowr maana bogan weli ciyaartiiya asaagiin nimuu caadka sare ka caddaloolayo inuu ciidda weli sii fadhiyo taa caqligu diidiya caraabada ku biir umiyii kaa cadceedsadee cirguduudda waa beri dadkoo camal u kooraystay cududaada maal iyo haddaad coodo garan weyday mindhaa caano geel ruux kalaan caato kaa bi'ine maahmaaha caan iyo haddaan weero culus sheego calaacalaha kugu yaal adoo ku cabba mooyaane caqda oonka kuma beelin karo ceel ninkuu galaya ujeeddada haddaan kuu cayimo caadina u sheego kuwa caydha loo soo dawaro caymada u haysta waa cudur ku maqan deeq waxaa caasha loo geline anna waxaan caloolyow dartii la carwasaadayo cuqdadda iyo hamiga waxaa i baday waa cashiirada ay cakuyey dadkaygay gabee la ima ciileene cakuyey dadkaygay gabee la ima ciileene waxbase carada iga muuqatiyo camal wareerkayga cadowtooyo ha u qaadanina waa canaan gacale cad hadduusan kaa igu ol kuma caraadsheene adduunkan casriga laysku hoday ee cirka u guuray ceeb waxaa hantiyey nimaan aqoon lagu cisaynayne war cilmiga u tartama jaahil baa caayan weligiisa cilmiga u tartama jaahil baa caayan weligiisa aad baa u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah abwaanku aad buu u mahadsan yahay gabagiisu wuxuu xambaarsanaa inuu qofku higsi yeesho haddaadan higsi lahayn waa ambanaysaa waana muhiim dhalinta soo kacaysa jaamacadaha kusoo biiraya dad firfircoon hal abuur leh higsi leh inay noqonno si aynu ummaddeenna u badbaadinno oo qayb uga noqonno horsocodkooda barnaamijkeenna ayaynu sii wadanaynaa laakiin waxaan rabaa inaanu xusuusiyo jaamacadda boosaaso inay tahay jaamacad u hagarbaxda ardayda laabab casrina ay u diyaarisay ardayda culumta sayniska baranaysa sida kombyuutarka iyo caafimaadka jaamacaddu sanadkii ugu dambeeyey waxay ilaa 1,000 arday ayay u carbisay oo tababaro wax la yidhaahdo internship ay geysay qaarkood hadda markay qalin jabiyeen shaqayba helaan arday walba oo doonaya inuu isu soo saaro higsi uu ku jiro hal abuur leh jaamacaddu waxay leedahay qayb dhan oo la yidhaahdo maaragtay qaybta hal abuurka oo ardayda iyo suuqa shaqada isku xirta jaamacaddu waa jaamacadda keliya markii laga qalin jebinayo keenta jaamacado caalamiya sanadkii lasoo dhaafay ilaa 4 jaamacadood oo caalamiya ayaa graduation ka soo qayb galay waxaasoo kharasha waxaa loo gelayaa waxa weeyaan in la horumariyo hanka iyo cilmiga ardayga jaamacadda boosaaso dhiganaya waxaa ka soo baxdeen secondary ama waxbarashada dugsiga sare waxaadna timaateen jaamacad oo ah waxbarashada sare marka waxaan jeclahay differencega u dhexeeya labada institution ka soo baxdeen iyo kaad hadda doonaysaan inaad ku biirtaan ayaa waxaan jeclahay inaan u soo dhaweeyo aad ila soo dhaweysaan Dr. Asad Nuux oo ka hadlin doona farqiga u dhexeeya iyo waxyaabaha in la gudboon ila soo dhaweeyo Asad waxaan idiin sheegayaa sheeko yar hadda ka hor dhacday sida ay u cibro qaadataan yani waa garanaysaan aan malaynayaa kanaalkan jasiira la yiraahdo jasiira barnaamij baa jira la yiraahdo bilaa xuduud barnaamijka wariyaa jira la oran jiray hadda weli wuu ugu sameeyay malaynayaa Ahmed Mansour baa la yiraahdaa
wuxuu tegay waddanka Finland buu tegay soo waraysi uga soo qaado madaxweynaha Finland oo qof dumar ahayd su-aashu weydiiyey waxay ahayd wuxuu yidhi waddankan Finland 5 milyan baa ku nool waddanku waa wada baraf xoolo ma laha 3 bilood ba wax beerataan dahab ma lihidin shidaal ma lihidin yacni qorrax inta aragtaa waa intaas sidee bay ku dhacday inaad ka dhaqaalo badataan waddamadii beeraha lahaa oo shidaalka lahaa oo idinka tiro badnaa oo xoolaha lahaa sidee bay ku dhacday waddan 3 bilood wax beeranaya waxaaba yaraatay la sheegi karo waxlana aan jirin su-aashii runtii qofkii dumarkeed madaxweynaha isagay qariibsatay waxay tiri ma faham bay tiri dhul la beertaa ka hadlaysa annagu waxaan beeranaa bay tiri maskaxda waxaan wax gelinaa juhdi ku bixinaa maskaxda weeye marka waxa ugu muhiimsan oo la rabo in meesha awoodda la saaro waxa waa maxay ogaada waddanka horumarkiisa mar walba wuxuu ku xiran yahay adinka weeyaan mustaqbalkiina weeyaan cidda beeranaysa ama environmentig wax lagu beeranayo jaamacadaha weeyaan jaamacadda boosaaso mar walba waxay ka shaqaysaa in la helo arday akhlaaq leh isku kalsoon oo dhisan waayo araga xirfad leh dareemaya wax la yidhaahdo social responsibility ama ay saaran tahay mas-uuliyad bulsho si taa loo helo marka jaamacaddu waxay kharash walba ku bixisaa waqtigeeda ugu weyna ku bixisaa sidii ay ardayda sanad walba ugu keeni lahayd dad qayb ka noqda horusocodkooda hankooda iyo hiigsigooda taas waxaa tusaale oo caaway oo inala jooga ustaad maxamed cumar oo aad wada garanaysaan waxaan u malinaya sharaxaad igama baahna isagu soo dhoweyntiisa wuxuu ustaadku ka hadli doonaa caqabadaha maanta in haysta hadda markii wax la kala doordooranayo qofku way ku adag tahay haddaa hadda gaari wato 5 wado ay kala bayraan tee raacaysaa waana dhibka hadda caawa in haysta ustaadkan ku soo dhoweynayaa si uu barnaamijkaas qayb uu ka noqdo ila soo dhoweeyo ustaad maxamed cumar waxaynu isugu nimanay inaan wax iskaga sheegno mustaqbal la filanayo inta badan waxyaabaha innaga talentskeena iyo hibooyinkeena iyo maaragtay dhalinyar badan oo humuum badan leh oo hibooyin iyo wada karti maydhana u diida inay soo ifbaxaan wax kale maaha waa awood la dhigay meel khaldan ama awood joogta meel khaldan ama awood rabta inay ka soo ifbaxdo meeshii aan meesheedii ahayn ama waa qof saxan oo meel khaldan jooga ama waa meel khaldan waa qof saxan oo isagu wuxuu haystaa right skill setkii xirfadihii saxdii kartidii saxdii aqoontii saxdii ra'yigii saxdii maskaxdii saxdii karaankii saxdii buu hayaa laakiin barteedii lama joogo marka waxaan isku baagaynaa waan rabnaa inuu safarkeenu ka bilaabmo inaan isku aadinno meesha saxdaa iyo qofka saxdaa mas-uuliyadda ugu badan ee arrintaasina adigay ku fuushan tahay adigay tahay inaad israadiso adigay tahay inaad se soo hesho adigay tahay inaad se soo baadho adigay tahay inaad ku mashquulsho in bal waxa ugu yaraan niyaddaadu aad is leedahay waad u jajaban tahay inaad raadiso that's number 1 safarka qofkuna halkaasuu ka soo bilaabmaa intaynu nool lahayna safarkaasaan ku jirnaa laakiin iyadana waxaa hor imanaysa oo ay tahay inaan idiin sheego mujtamaceenna ama inteenna meeshaa fadhida qof kastoo inaga midii miyuu fursad u helaa inuu ogaado waxa baashankiisu yahay nacam waxa qof walba uu ku fiican yahay uu jecel yahay inuu qabto dadku ma wada helaan soo saa ma in yaroo kooban baa hesha marka waxaan rabay inaan ku bilaabo waxaan idinla wadaagayo halkee laga helo safarkan ishelidu siduu u dhacaa sideed u ogaan kartaa baashankaaga talooyinka ugu qiimo badan leh qof la siiyo waxaa ka mid a follow your passion jidkaaga jeexo oo jidka adiga wax gaarood ku fiican tahay baa jira wax gaaroo adiga aad u samaysan tahay baa jira waxaa raac soo sama okay sideen u raacaa sideen ku ogaadaa baashankayga inaan ogaado waxaan ku fiicanahay maxaa ii saamaxaya maxaan isticmaalaa si aan isku ogaado dadka badankiisa inta badan
intay nool yihiin oo dhan fursad ba uma helaan inay ogaadaan because waxa inta badan ay kaga mashquulaan waxay ku fiican yihiin waajibaadka kale hadduu laakiin qofku helo waxa uu ku fiican yahay uu ku raaxaystaa waajibaadka marka laakiin aanad ogeyn waxaad ku fiican tahay waajibaadka kale ee noloshaada oo dhan waxay noqdaan culays iyo cidhiidhi waxaad xamilayso ood ku khasbaysay noqdaan laakiin markaad koolinka ama waxaa adiga qalbigaaga loo sameeyey ama ilaahay kuu fududeeyey oo dhinaciisa kuu jeediyey aad heshid rest will follow suit waxa kaloo dhan wuu fudaanaya okay marka waxaad ogaataan eg inaad baashankaaga heshidi dad badan waxay u tahay a whole truth oo noloshooda dhan bay ku qaataan waxaad ogaataan markaa baashanku ama waxaad ku fiican tahay adigu ee niyadu haysaa ma yimaado isku dayga ka hor wax halkaa iska yaallo intaad ogaato aad qaadanayso ood la tagayso maaha wuxuu ku yimaadaa isku dayga kadib 3 stage buu maraa waa 3 marxaladood waa 3 marxaladood kow waa isku day badan ood samaysay baa uu kaaga soo dhex baxay wixii aad ku fiicnayd markii aad heshayna waad caashaqdo waad jeclaatay markii aad jeclaateed caashaqdayna waxaad gaadhay ku celcelintiisii iyo jacaylkiisii iyo barashadiisii iyo daba socodkiisii iyo wacaalkaagii ku aadanaa waxaad si aad u daba joogtay waxaad gaadhay level of mastery marka waxaa la odhanayaa qofkaasi wuu ishelay wuxuu ka shaqayn lahaa ee uu ku fiicnaa buu hayaa qofka qurux badan wuxuu ku fiicnaa qabashadiisana ma jiro haddaad u fiirsataan dadka nolosheenna ku dhex jira qaarkood weliba dadka saamaynta nolosheenna ku leh waa dad aan aqoon ahaan dadka kale ka aqoon badnayn dhaqaale ahaan ka dhaqaalo badnayn wax badan oo dadka kala haystaan aan haysan laakiin waxay leeyihiin awood dadka badankiisu aan u helin oo ah inuu qofkaasi helay mawjadiisii marka qofka isku dayga badan leh waxyaabo badan isku daya uu kaaga dhow yahay inuu wuxuu ku fiicnaa helo qofku wuxuu ku fiicnaa helaana uu ka awood badan yahay isma qariyo cadeedoo kale weeyaan qof cadeeda mashan sac ma lagu qarin karaa qofka iftiin fiican oo ka xaraga fiican oo ka shaqo wanaagsan oo ka qurux badan siduu u qabanayo wax siduu u dhaqmayo siduu u hadlayo siduu u socdo waa qof mawjadiisii haysta waa qof qurux badan waxaad dareemaysaa waa a source of light iftiin buu dadka kale u yahay qof kastoo arkaana wuxuu xasuusiyaa wax ka maqan marka si aad u heshid waxaad ku fiican tahay maxaan samaynaynaa number 1 isku daygaan badinaynaa waxyaabo badan baan isku dayaynaa hadduu yuurarun meel kaliya meel albaab kaliya una dul joogin waxaad isku daydaa in wax kasta oo aad isku dayi karto aad isku daydo trialku wuxuu baraa qofka isku dayga badan inaad maalinba meel naftaada geyso inta yaraad la qabsatay si joogtaa naftaada uga kaxayso oo aad comfort zone baa la dhahaa barada yaraad la qabsatay dadkaad la qabsatay magaaladaad la qabsatay qaraabadaada dadka ku yaqaan dadkaad taqaan saaxiibada inta yaraad nafska ku dareento inaad si joogtaa naftaada ugu khasabtay inay ka baxdo dad cusub barato meel cusub isgeyso yaa waxaad haysato wax ka badan raadiso inaad sidii ustaadku sheegay noqoto qof indha furan ya oo faduuliya oo curious oo mar walba raadinaya wax wuxuu og yahay ka badan oo si joogtaa isugu dayaya inuu intuu la qabsaday inaan ahayn isdhexgeey ka waxay dhahdaan macallimiinta horumarinta dadka takhasuska ku haystaa waxaad raaxo ka dhex raadisaa raaxo la'aanta markaad iska nafsteed iska raaxaysanaysa wax walba ku hagaagsan yihiin ma koraysid markaa korriinku ma dhaco korriinku wuxuu dhacaa marka aad geysan naftaada meel ay cidhiidhi ku dareemayso waxaa la yidhaha hadda intaad yar tahay shaqee dadaal naftaada cidhiidhi naftaada dirqi naftaada ku khasab inay intay qaban karto in ka badan qabato ida intay hadda qaban karto in ka badan inay qabato si aad u nasato markaad weynaato si ay nolosha kuugu fududaato markaad da' joogto ee aad hawl gabto haddaad hadda waxaa qaban weydo adigoo da-aad qaban wixii aad qaban lahayd yaraantii and we see that very often waa aragtaan maalin kastana waan aragnaa everyday waxaan aragnaa qof weyn oo culus oo da-ah oo ay adag tahayba inuu dhaqdhaqaaqo oo qabanaya shaqo ay ahayd inuu yaraantiisii qabto ama ku qurux badnayd inuu yaraantiisii qabto that's one try isku dayga badi ha ka baqin inaad wax ku fashilantay inaad garan weydo in ma aragtay ay kaa xumaato inaad kufto inaad magac xumo kaa raacdo it's all that gross is painful
inuu qofku koro oo intuu yahay in ka fiican noqdo in ka weyn noqdo way xanuun kulushahay markuu ilku kuu soo baxo aragtay ilkaha dambe ee goosasku markay soo baxayaan waa xanuun laakiin markay kuu soo baxaan waxyaabaha ugu fiican aad haysatay ka mid yihiin kaas waxay kuu saamaxaan inaad cunto sideedaba korriinku waa painful ma raaxo maaha inuu qofku koro oo wax noqdo oo qof qiimo la noqdo oo qof maaragtay macno la noqdo ma fududa maaha hanaan yaroo iska fudud oo lagu raaxaysto adoo nafis oo wax walba ku hagaagsan yihiin ma koraysid real growthku korriinka dhabtii wuxuu ka dhacaa marka naftaada aad cidhiidhi geliso marka si aad u hesho waxaad ku fiican tahay oo ah meesha macdantaada iyo dahabkaagu yaallo isku daygaaga badi naftaada ku qasab si joogtaa inay uga baxdo inteena la qabsatay wax badan isku day meel aanad garanayn tag dad aanad garanayn la hadal la sheekayso naftaada waxaad mar walba dhex dhigtaa context iyo waaqic challenge garaynaya oo ku khasbaya inay si kale u fikirto dad inta yara taqaanuun dhex joogto ma koraysid waxa la yidhaha qofku markuu intii yareed ula qabsaday si joogtaa iskugu daya inuu uga baxo xitaa waxa u dhisma ma aragtay khafis protective oo ka ilaaliya inuu naftiisa bias ku noqdo inaad isku malayso inaad adigu ugu fiican tahay inaad isku malayso inuu qaraabadaada ugu lacag badan tahay inaad u malayso inay magaaladaada u fiican tahay inaad u malayso inaad adu leedahay nolol caruurnimo oo qurux badan markaad adduunyada u baxda ama hareerahaaga si dhaba ugu baxdo eed isku dayda inaad la falgashid waxaad dareemi inaad qof caadi un tahay waxaad aqbali xaqiiqada inaad one of the people tahay markaad taa aqbashidna dariiqaaga yar baad heli waad iska raaci marka you will be less biased to yourself taasi waa taa qodobkaasi waa muhiim markaad isku dayga badisid anigu waxyaabahan aad u jecelahay inaan ka sheekeeyo waxaa ka mid ah aniga igu dhaceen waxaan idinka sheekeynaya waxyaabihii career lifekii aan dhistay noloshaydii shaqeen soo dhistay badankeygu ma aha wixii aan hadda ku shaqeeyeen noloshayda caadigaa ku maarayo maaha it's totally different nasiib darro waxaan ogaaday baashankaan idinkala hadlayo waxaan ku wanaagsanahay idinkala hadlayo waxa aan isleeyahay dadkoo dhan baad kaga fiican tahay ee shaqo weyna ku samayn karo waxaan ogaaday very late xilli hore xilli dambaan jeeda mar dambe ayaan ogaaday anigoo kolka jaamacaddii kasii baxay ayaan ogaaday waxayna igu qaadatay intaan jaamacadda dhiganayay in leeg inaan iyadii neerjargareeyo koriyo naaxiyo ka shaqeeyo qurxiyo dhiso aqoon u yeelo maaragtay aan u dhiso power base markaa tii ugu horreysay baan ku celinaya maxay ahayd isku dayga badi markaad isku dayga badiso waxa kuu soo bixi dhowr shay ood is leedahay dhowrkaa shay baa malahan ku fiicana dhowrkaa shay markaad iyaga laftigooga ku noqnoqotid way sii kala miirmayaan waxaad gaadhi marxaladaa toos u arkayso si iftiina u arkayso waa tan aniga dariiqaygii waa tantaan ku fiicnaa tan aan isleeyahay lagaaga badin maayo halkan aananu ka raadinayaa nolosha saxda aan isleeyahay naftaadaad wax ku tari qoyskaagaad wax ku tari dadkaagii bulshadaadaad wax ku tari waddankaagaad wax ku tari dunidaad ku nooshahayna qof macnalo oo wax soo kordhiya ama wax loogu tago oo loo muraad yeeshaad ku noqoni try then you will fall in love with the process then waad jeclaan waxaa markay kuu soo baxday isku daygaa badan waxbaa kaaga soo bixi waad jeclaan markaad jeclaatideed ku celcelisidna waxaad gaadhi level of mastery haddaad halkaa gaadhan waxaad noqon il waxaa loogu hagaago loo doonto waanad ogtihiin tusaalayaal cadcad oo bulshadeena dhexdeeda ku nool baa jira hebel iyo heblaayo dadka dha soo sama marka hadda waxaad bilaabaysaan hayaan waxbarasho sare oo qofka qaybta u jihaysa inuu noqdo inuu boos ka xadxadho bulshada dhexdeeda your positioning yourself in the market markaad daraasaad ducliya soo gashid waa xilligaad ka tashanaysid halkeen bulshada ka dhex fadhiisanaya marka waxaad iyadana ka fikiraysaa saddex shay oo muhiima halkaas waxaa jira dhaqan qaabka bulshadeena u dhisan tahay darteed waxa maskaxdeena ku weyn inaynu lacag u samayno inagoo u haysana inay lacagtu tahay halka keliya nolosheena waxaa nolosheena jira caqabado badan oo aanay lacagtu xallin taa ogaada caqabado badan oo haddaan lacag badan lagu dhiba aanad xallin karin baa jira laakiin ilaahay xikmadiisa darteed uu xalkeega dhigay meel aan meesha ahayn markaad hadda ku jirtaan inaad dooranaysaan ood kala saaraysid meesheen u dhaqaaqaya mustaqbalkayga eed isku iskaa joogto saddex shay baa kuu muhiima inaad ka fikirto saddexdaa shay waxa weeyaan waxa aan dooranayaa
ma yahay wax aniga macno ii leh personal meaning wax dhadhan iyo macno gaara ii leh oo fikir ahaan mabda ahaan dareen ahaan iyo qof ahaan aan u doodi karo u istaagi karo waxaan u noolaan karo una dhiman kara ma yahay a sense of purpose inaad ka dhex aragto inaad ujeeddo ka dhex aragto waxa aad rabtid inaad gashideed noloshaada kusii socotid aad xirfado iyo aqoon kasii badsatid personal meaning waa ta ugu muhiimsan taasi weliba wax kastood qabanaysid waa inuu macno kuu leeyahy waa ina faham ahaan iyo fikir ahaan iyo caqiida ahaan waxaasi uu la xidhiidhaa jiritaankaaga uu yahay wax ka mid ah waxyaabaha aad aaminsan tahay ama muqadasaadkaaga dhakhtar baad noqonaysaa dhakhtarnimadaba waxaad u jeceshahay uun xirfad ahaan mise mabda ahaan waxaa jirta caqiido kuula xidhiidha xirfadda oo aad sababayn kartid u noolaan kartid noloshaada dambe dhammaan inaad ku xidhi kartid meaning personal meaning inaad taa ka dhex raadiso waana waxyaabaha qofka hadhow haddii uu ka dhex waayo wuxuu qabanayo ku kalifay inuu niyo jiro dad badan waxaad aragtaan intay dadaalaan jaamacaadka dhameeyaan meelo sarsare ka gaadhaan markay shaqo galaan ay noloshay shaqo galaan calaacalo dhahaa ma ku faraxsani waxaan aan qabanayo ama iima dhadhamayso it's because qofku wuxuu qabanayo meaningkeygii baanu weli waxaan isku qaban qofka waxaan xirfad ahaan uu bartay aqoon ahaan uu bartay sidee bay ula xidhiidha caqiidadiisa fikirkiisa fahamkiisa philosophically qofkani ma ugu la eg wax kastoo qabanaysa waa inaad ka dhex arki kartid wax ka weyn lacagta wax ka weyn maadiga wax ka weyn guri iyo maaragtay gaadhi iyo lacag iyo position iyo caanimo iyo hanti iyo awood wax intaa ka weyn oo meaning iyo purpose iyo ujeeddo ah waa inaad ka dhex arki kartid taas waa ta koowaad any choice aad samaynayso including this one kan hadda aan joogno uu ka mid yahay meaning horta uu samey personal meaning laba commercially viable waa inuu noqdaa wax dhaqaale ahaan macno samaynaya dhaqaale kuu samaynaya kuu noqon karaa il dhaqaale haysdiisiin lacagta anu markaan hadda ka sheekeynaya lahaa meaning personal meaning raadi macnaheegu ma ahayn lacag uma baanid you need it waad og tahay taa waa og tahay laakiin lacagta wax ka weyn baa jira inaad u nooshahay ama u jirto mabda iyo caqiide inaad leedahay ood wax aaminsan tahay baa ka muhiimsan inaad lacag badan haysatid haddaan qof aan waxba mabda u joogin lacag siiyo definitely wuu dhamaynaya lacagta ama isagaa isku baabiinaya qof laakiin qorshe leh oo meel u socda oo mabda leh oo meel u calaamaysan oo muqadasaad leh oo wax ku dhex nool yihiin oo faham iyo fikir haysta oo meesha u soconaya arkaya haddaad lacag siisid uu garanayaa lacagtaas u isticmaalaya soo arkaysan okay soo ta koobaad maxaan idinay waxaad ka dhex raadisaan personal meaning anu maxaan aaminsanahay anu maxaan u socdaa anu maxaan u taaganahay anu maxaan rabaa anu noloshan maxaan rabaa inaan ka bedelo nolosha qoyskayga maxaan rabaa inaan ka bedelo nolosha bulshadayda maxaan rabaa inaan ka bedelo ninaa saaxiib nahay oo aadan u jecelahay baa jira wuxuu bartay dhakhtarnimada annagoo maalin sheekaysanayna aniguna qayb caafimaad ka mid umaan bartay marka annagoo sheekaysanaynaan isweydiinay maalin maxaa dhakhtarnimada u gashay wuxuu ku xidhiidhiyey qisada noloshiisa wuxuu ku yidhi aniga hooyaday qoyska abtiyaashay oo dhani waxay leeyihiin taariikh mental health caafimaadka maskaxdooda wax ka khaldan yahay dhowr abtiyaashay ka mid ah ayaa xanuunada u dhintay dhowr kalena hadda way la nool yihiin xanuunada waxaan arkay joorigooda iyo noloshooda siday u eg tahay waxaan aaminay in door aan ku yeelan karo inaan noloshooda wax ka bedelo ama nolosha dadka sidooda u noolo kale inaan wax ka bedelo hadi xaqiiqa waa personal meaning qofkaasi dhakhtarnimada markuu galay lacag kama raadinayo dhakhtar caan oo la yaqaano tigidkiisa $20 lagu galo inuu noqdo ma raadinayo meaningkiisu waxa weeyaan inuu nolosha dadka macno ku sameeyo wax bedelo he has a personal meaning marka hadduu xirfadda lacag ku helay haddaanu ku helinba wuu qabanaya because dhadhan bay u samaynaysaa taariikhdiisa qofeed bay ka mid tahay aaminsanaantiisa iyo caqiidadiisay ka mid tahay waxyaabuu u taagan yahay bay ka mid tahay waxyaabuu intuu nool yahay inuu wax ka bedelo ay tahay bay ka mid tahay saa darteed uu daba joogaya si raaxalana uu qabanaya that's one ta koowaad aad ku dooranaysid hadda facultyga ama daraasaat alculiyagaad bilaabaysaan majaalkaad ka gelaysid macno ka dhex raadi macno u samee ma fududa markaan halkan ka hadlayna sheegayna waxaa
wax laga yaabo inay yara macaan tahay marka la dhageysanayo ama laga sheekeynayo laakiin markay qabasho timaado aad isla fadhiisateed naftaada la fadhiisateed tiraahid aan shaawiro maxaa macnayla leh maxaan anu rabaa inaan bedelo faamilkayga aniga naftayda bulshadayda sida maxaan rabaa inaan bedelo halkeen rabaa inaan irbada gashado oon wax ka tolo baylaha badan baa jirta tu qoys tu qofeed tu bulsho ayaa jirta tu wadan baa jirta ya okay halkeen rabaa inaan irbada doonta ka geliyo laba in waxaas uu kuu noqdo wax continuously kuu samaynaya dakhli aad ku noolaan kartid oo noloshaada ku maaraysid ta saddexaad ee ugu muhiimsan tii hore la xidhiidha ee waxaa personal meaning ka dhex raadi adu waa inaad aaminsan tahay waxaad qabanaysid ta saddexaad waxa weeyaan social impact in waxaasi mujtamacaad ku dhex nooshahay wax ka bedelaya saameynna ku leeyahay qofka saddexdaa isla helaa wuu faraxsan yahay si joogto ah buu u dareemayaa inuu muhiim yahay wuxuuna nool yahay nolol ciise leh dad badanoo waxaa jira saa nool allahu akbar sallallahu in cilmigu ilaahay waxa laga baryaa ilaahay cilmi naaficana siiso sama nafcigiisa waxa ka mid ah nafciga cilmiga waxa ka mid ah inuu dhibaato bulsheed xalliyo ama dhibaato qofeed jahalku aqoon darrada iyo jahligu waa cadow soo ma waa cadow waayo waxay sababaysaa mushkilado cilmiga faa'iidooyinkiisa waxa ka mid ah inuu xalliso mushkiladaha ijmaacigaana xalliso okay marka adiguna waxaad ka dhex raadinaysaa wax kastoo dooranaysid sidee bay ula xidhiidhaa isbeddel bulshadeedu inuu ka dhex dhasho inaan isbeddel bulsheed ku keeno sidee bay igu suuragal tahay maxaa ku saabsan waxaanan dooranayo oo la xidhiidha isbeddel bulsheed ama inay saameyn ku yeelato wanaagsan dhaqan dhaqaalaha bulshadeeda okay saddexdaa qodob aan sheegay iyo saddexdii hore aan sheegay waxay toos ula xidhiidhaan sidaad wax u dooranaysid gaar ahaan markaad joogto isgoyska hadda aad joogtid anigu nasiib uma helin in wacyi iyo muxaadaraad iyo aqoon iyo garasho ka hadlaysa ama wax nooga iftiiminaysa markii aan joogay halkaa maan helin waxay igu kaliftay inaan 5 sano dhankaa u cararo 10 sanona dhankan u cararo waan ka baaqsan karaya haddaan heli lahaa fursaddan aad hadda haysataan oo kale dad wax og ama dad soo maray experience-ka hadda aad maraysaan ama dad aqoon leh oo bartay fieldskan intay idin soo hor istaagaan ay saacada idinka warramaan soo qabso waa fursad ayayna ku seegin hana u malaynin conversation ama khudbado ama sheekooyinkii dhici jiray mid ka mid ah oo halkaa kaga tegin intaad qaadid caawa naftaada meel la fadhiiso kala sheekaysa naftaada wixii aad soo maqashay maxaan kaga bedeli karaa naftayda sheekayso si fiican u sheekayso caawa kala dharag berri waxaad la timaadaa adigoo haysta dhowr shay ood isleedahay dhowrkaa shaybaa ay ii dhaaf weyda aniga okay waxaa kaloo rabay oo qodobada ugu muhiimsan ee rabay inaan idinla wadaago ka mid a eg innagu waxaan ku jirnaa safar aan rabno inaan ku baabiino gaab eg hadda qof baa tahay qofna waad jeceshahay inaad noqoto labadaa qofina way kala fog yihiin saasaa ma hadda qof halkaa fadhiyo laani way dhantoo waxba uma baahni ma jiraa maya noloshiba sidaa maaha waa laynaga dardaaray xitaa nabigeena sal ly slam waa inaga dardaaray ya maalintaad dhalatay ilaa maalintaad dhimanaysid ya laxashka iyo maaragtay naxashka iyo sariirtii ilmaha labadaa inta u dhaxaysa oo dhan si joogtaa wax u baraa lagu yidhi si joogtaa naftaada u kobci baa lagu yidhi si joogtaa naftaada u daahiro u nadiif baa lagu yidhi si joogtaa naftaada ugu ilaali baa lagu yidhi dariiqaa saxdaa way adag tahay in mararka qaar la dul joogee soo ma okay personal transformation journey-ga markaa waxaad ku jirtaa safar aad rabtid inaad wax ku bedeshid naftaada ku bedeshid caadooyin ma aragtay dib kuu hayood arkaysa aad iskaga baabiisid kuwa hore ku wadayo fursada ku tusaya aad ma aragtay ku dhisatid waa safar markaa aad isbeddel macnale ku raadinaysid ood ka dhaqaaqaysid qofkaad hadda tahay ood u dhaqaaqaysid qofkaad rabtay inaad noqoto soo maaha okay safarkaasaan jeclaa isaguna sidii noo caadada ahayd inaan idinka sheego dhowr shay oon isleeyahay safarkaa shidaalkiisa keliyaed ku mari karta weeyaan qof walbo inaga mid including myself macallimiinteenna ardayda qof kastoo halkaa inaga midi wuxuu ku jiraa safar uu isbeddel ku rabo waxaan rabnaa inaan wax beddelno waxaan rabnaa qof aan sawiranay oo maskaxdeenna ku sawiran inaan noqonnaan rabnaa
si safarkeena markaa transformational journey-gaasi uu guulaysto waxay ka bilaabmaysaa waan ku celceliyaa maalin kasta meel kastoon ka hadlana waan ka sheegaa halkaa 2 sanaan ka hadlay 2 sano waan ka sheegay waan kuugu celinayaa waayo 10 jeer in lagu celiyay istaasha waa madaxaaga kugu rakiban waa si aad u fikiraysid waa fikirada maskaxdaada ku jira waa qisada aad u naftaada ka aaminsan tahay waa thought process-kaagiisa u fikirtid ama kuwaasaa dabar kugu oo ku haya ama kuwaasaa kuu ah dhiirigelin kuu diiday inaad seexato mararka qaar ninbaa beri wuxuu yidhi riyooyinku ma aha markaad seexatid waxaad aragtid ee waa waxa kuu diiday inaad seexatid qofka dhab u riyoonaya maaha qofka intuu iska seexda riyo fiican ku riyooday because riyada uu ku riyooday aroorta mararka qaar wuu iloobaya markasta waqti ka soo wareego waad iloobaysa real dream riyada dhabta ama hamiga dhabtii waxa weeyaan inaad ka seexan kari weydo kolba dhinac markaad isku rogto wixii ku soo hormarayo indhaha aad ku qaban kari weydo waayo waxaasaa kugu weyn marka waxay ka bilaabmaysaa transformational journey-gu sidaad wax u arkaysid adduun araggaaga waxa maskaxdaada ku wareegaya waxaa la dhahaa maalintii keliya qofku waxa soo mara maskaxdiisa 60,000 oo fikir 60,000 thoughts baa maskaxdaada ku wareega every day waxay u badan tahay inay waxaasi mid keliya noqdaan fikirro isku mid noqdaan marka story-ga iska socda ama thought process-ka iska socda waa inaad khalkhalisaa waa inaad dhex gashaa waa inaad dhex gelisaa wax khalkhalinaya fikirka because fikirkaasi hadduu sidaa usoo noqnoqdo sidaad u fikiraysa haddaa u fikirtid waxaad haysanaysaan waxaad haysataa hadday fikirkaaga wax iska bedelaan waxaa isbedelaysa waxaad arkaysa hadday isbedelaan waxaa isbedelaya sidaad ula dhaqmayso hadduu dhaqankaaga isbedelana waxaa isbedelaya waxaad helayso it all starts within your head madaxaasay ka dhex bilaabmaysaa marka waxaanan ka sheekeynaya wax weyn hamoodina waxaan ka hadlaya waxa weeyaan maxaad ka hadashaa maalin walba 24 saac waxa ugu badan ee ka sheegaysid waa maxay waxa ugu badan ee dhegtaada ku soo dhaca waa maxay waxa ugu badan ee akhridid waa maxay waxa ugu badan ee aad consume garaysid cuntid ama aad isticmaashid waa maxay maskaxdaadu gasho maskaxdaadu waa furaash oo kale haddaan kaa biyo ku shubo biyuun baa ka soo daadanaya 24 hours ka maalintu ka kooban tahay waxaad isticmaashidii waa overall experience ka maalintaada waa maalintaada sida u ekaanayso iyo sidaad dareensan tahay habeenkii markaad seexanayso so inaan taa bedelno ya taa inaan bedelno oo khalkhalino qaababka maskaxdaada thought process-keega loo khalkhaliyo waxaa ka mid ah inaad maskaxdaada ku jihayso ama fursad u siiso inay aragto new experiences wax cusub akhri buu qaado qof la sheekaysa aad ka raagtay meel aad aragtay new experiences maskaxdaada sii waxyaabaha ugu mudan ee qofka wacyigiisa iyo consciouskiisa iyo baraarugiisa daara ee khalkhaliya thought process-ka caadiga ah iska caadada inoo noqday waxaa ka mid ah akhriska maalinta keliyeed wax akhrida waxaad dareentaa qayb ka mida oo sii dhimanaysay oo soo noolaanaysa soo ma waa kii ustaadku hadda sheegay qofka kale wuxuu ka qoto dheer yahay wuxuu ka hadal macaan yahay wuxuu ka xikmad badan yahay wuxuu ka dixiinsan yahay wuxuu ka caqli badan yahay wuxuu ka halabuur iyo hal curin fiican yahay qofku ka akhris badan yahay qof walba wuxuu hadlaa u dhaqaaqa oo u dhaqmaa oo u fikiraa oo u sheekeeyaa oo naftiisa u qaadaa waxa uu og yahay in leeg mar kasta ogaalkaagu hagaago waxaad qabanaysaa hagaagaya when you know better you do better ficilkaaga waxaaga ogaalkaaga mar kasta ogaalkaaga hagaaga maxaa hagaagaya ficilkaaga hagaagaya soo madaxaaga yaree kugu rakibani wax weyn weeyaan ama wuxuu noqonayaa masiibada kuugu weyn ee ku haysata ee qayrkaa kaa reebtay ama wuxuu noqonayaa waxa ugu muhiimsan ee fursad ku ah ee possibility iyo suurtagalka ku tusa ee ku saamaxay inaad qof hal curiyo ah oo maaragtay wax xallin kara oo wax furfuri kara oo wax hindisi kara inaad noqotid number 1 markaa waa taa inaad qabsatid ood ka adkaatid waxa maskaxdaada galaya waxaad akhriyayso eeg waxaad dhegaysanayso eeg waxaad ka sheekeynayso eeg intaa haddaad si caadi ugu fiirsatid waxa kuu soo bixi waxaad haysatid sababta aad u haysatid marka waxaan idin sheegay dhowr tallaabo oo wax tari kara maskaxdeena iyo thought process-keena saan u fikirayno wax bedeli kara waxa ka mid ah waxa la yidhahaa 20 midhidh ee qofka ugu horeeya noloshiisa markuu soo tooso maskaxdiisa waxay ugu shaqaynaysaa sida ugu badan sidaa darteed xilliyada waxyaabuhu maqlo ama akhriyaa waxay maamulaan ruuxda maalintiisa oo dhan waa aragteen marka xifdiga quraanka laga hadlayo xillima lagu beegaa markaad soo toostid soo sama sababta ma taqaana
markaas maskaxdaadu waxay u shaqaynaysaa xawaarihii ugu badnaa waa markii wax aqbali og tahay waa markaad adu ka adagtaheed wax u dhigteed garayn karteed wax u yeedhin karto intaa haddii lasoo dhaafo iyadaa ku dhigteed garaynaysa aduma maamushidba intaa wixii ka dambeeya marka inaad waqtiyadaa ka faa'iidaysataan ood uga faa'iidaysataan maalin walba intaanad soo bixin markaad toostid inaad wax macna kuulo awood ku siinayo hankaaga dhisaya oo indhaha kuu furaya oo aragtida kuu furaya inaad dhegaysatid inaad waxyaabaha kuu muhiimkaa qortid maalintaada intaanad soo bixin inaad akhriska caado ka dhigatid waxyaabahaas waa waxyaabaha thought processkaagiisa u fikiraysa khalkhaliya number 1 number 2 waxaa ka mid ah inaad aada ugu fiirsatid conversations engaging waxaad ka sheekaysid hadda u fiirsa bal hadda haddii maanta wax dhegaysatay ama saaka xilli ka mid wax dhegaysatay waxay u badan tahay inay maskaxdaada kusoo noqnoqonaysa wixii gabay ha ahaado sheeko kale ha ahaato xasuusteedii baa kugu soo noqnoqonaysa waad soo dhandhan celinaysaa saasay maskaxdeedu u shaqaysaa marka waxaa kaloo isbartaa oo caadaad ka dhigataa in maalin aanay ku dhaafin adoon wuxuun akhriyin wuxuu doona waa noqdeen bogna allah ka yeele inaanay maalin ku dhaafin adoon wax akhriyin waayo waxaa adduunyada yaalla badankoodu waxay u badan yihiin qashin in dad kale laga sheekeeyo in wax kale laga sheekeeyo in ma aragtay laga sheekeeyo wax dhacay events marka maaha wacyiye waa akhbaar waa dhacdooyin lasoo report garaynayo kow madaxaaga inaad ka soo adkaatay attitude marka waxay ku noqonaysaa uladii waxaa layna bari jiray ama fasalkii koowaad ba ta ja ama waxaa layna bari jiray ABC soo ma ABC dii baan ka qaadanayna aan isticmaalaynaa marka safarkaaga aad isbedelka ku rabtid ama aad rabtid inaad qof kale oo adigoo fiican aad ku noqotid waxa ku xiga the next one waxa weeyaan inaad dhistid aaminsanaantaada sida ay waaqican ku nool u samaysan yahay badankiisu waxay u badan tahay inaad ku niyad jabto waxyaabo badan oo haddaad hareerahaaga eegto niyad jabinayaa jira soo ma dhaqaale xumo ha noqoto qoyska oo maaragtay waxoogaa dhibaatooyin ka jiraan ha noqoto waalidka qayb ka mid oo maqan ha noqoto waalidkii oo kaa hor dhintay ha noqoto maye waxyaabo kale ha noqoto ha la yaabin waxaa nolosha eg sunnaha sidaasa ma aragteen geedaha maalin kalena inaan idiin sheegaan malinaya geed walba waxa ka hoos baxa wax xaaramo laydhaa soo saama beeraha caadiga qodanno inagu waxaan beeranay galley ama masago laakiin waxaan haynow ka soo hoos baxa soo ma geedo badan oo aan wantidaa ka hoos baxa oo inaan garanayn inagu inaan beeran soo ma kuwaas maadaa dhiirigeliyo beeray maadaa biyaha siiye mise adaa siidhkooda maya way iska baxaan caadiya nolosha way dhex yaalaan disappointmentka niyad jabka isku buuqa ma aragtay inaad luusi yaro noqotid oo qof kala daadsan noqotid way jirtaa muhiimaddu waxa weeyaan miyaad ka dadaalaysaa inaanay waxaasi kugu badan mise waad iska fasaxday marka inaad si joogtaa maalin walba dadaal ugu bixisid inaad dib u dhisid iimaankaaga aaminsanaantaada sidaad isku aragto sidaad u aragtay adduunyada waxaasoo dhan adaa soo dhisi kara mar walba waxaad maqashaan believing yourself is aamin oo sideen isku aaminaa is-aaminiddu maaha wax inta lagu yidhaha aad qaadanaysidun maaha sidii beriis cun oo kale inta beriis qaadatay it's not it's a process inay dib u soo noqoto inaad naftaada inay wax qabsan karta aamintahay it's a process waa shaqo u baahan si joogta ah inaad u dhistid waayo inaanad is-aaminin bay u badan tahay because wax is-aaminid la-aantu is already there way iska jirtaa shaqadaadu waxa weeyaan inaad la dagaalantid inay jirto shaqadaadu waxa weeyaan inaad geedaha ka hoos baabiisid haramaha baxaya inaad goysid si joogta u geysid waxyaabaha ugu mudan ee qofka inuu isbedelo u saamaxa waxa ka mid ah inuu aaminsan yahay inuu karo adaa iska shaki markaad adigu isa soo aaminsana waa lagaa shaki marka dadku ku aaminaana adaa dib iskaga shaki it's always there ha ku degsoomin marka waxaad samaysataa routine ama caado joogto ah oo kuu saamaxda inaad naftaada u sheegtid inay wax suuragal yihiin waxyaabaha uu nabigeenu inagu dhiirigeliyey sal ly slam waxaa ka mid ah eg xitaa markaad hadlaysid inaad wax fiican tiraahdo inaad niyadaada teeda wanaagsan raacdid haddaad wax weydiisanayso nin ma aragtay nin reer burco oo kaftan badan baa wuxuu yidhi nin baa hotel soo galay beri markaa waxaan cunaynay buu yidhi cunto badan markaa
half pasta uu dalbaday buu yidhi halfkii yaraa baastidii uu dalbaday buu 5 jeer bisinka u qabtay buu bismillaahi bismillaahi balaayo ka bayd bismillaahi balaayo ka bayd soomaalida ruux ku maamaaji soma bakayl nayl qashabe samee balay bayd badana soo samee horta saasay soma haddii bakayl uu qasho nayl maanta dhan wuxuu dhahay haddaba bakayl way ku adkeed inuu qasho naftiisa u qudho moogta maanta dhan balay bayd tooynaya balay bayd way ku adkeed inuu qashaa markaa ninkaa kaftaga badan wuxuu yidhi ninkiiba nin ag fadhiyo ku yidhi waar haaf baasaa bisan u qaban anaga intaa culinaba bisan maanaa qabane sideed wax leedahay markaasaa isku qabsanay meesha waa ninka daa waa edab fiican oo saxa in bisinka cuntada loo qabtee maya wax weyn dalbo bisinka u qaba annaga waxaan cunnayba sida maynaan ahayn marka waxay ku dhammaysteen sheekadii haddaad ilaahay wax weydiisanayso wax weyn weydiiso isaga waxba kuma inuu wax yar ku siiyo iyo inuu adduunka oo dhan ku siiyo waxba kuma isaga labaduba uu isman yihiin midna kuma culuso midna kuma weyn markaad adigu wax raadinaysid ilaahay wax ka filaysid naftaada wax ka filaysid teeda weyn filo teeda weyn weydiiso teeda weyn isku qor ha isku qorin qaybta yar adiga cid kuu qortay qaybta yar ma jirto waxaad u qalantaa waxa ugu wanaagsan waxaad u qalantaa qofka ugu wanaagsan inaad noqotid weydiiso ilaahay waxa ugu wanaagsan u shaqee waxa ugu wanaagsan filo waxa ugu wanaagsan naftaada waxaad kula ballantaa anigu waxaan ugu shaqaysanayaa waxa ugu wanaagsan inaan helo haddaan heli waayo waa sheeko kale laakiin anigu markaan dejisanayo xariiqayga waxaan qabsanayaa meesha ugu fog haba meel yar baan dadaalku hay geeyo haba i geyn waayo hadduu doono laakiin mar walba waa inaan qabsadaa meel sare waa inaan is aaminsanahay ilaahayna aaminsanahay haddaad labadaa isku heshid cidna uma baahnin inaad ilaahay aaminsan tahay inuu kula jiro in markaad daacadteed si dhab u shaqayso aanu ilaahay ku maaragtay wax kuu diiday inaad aaminto inaad meel ku qorato if I am better haddaan anigu fiicanahay haddaan layga fiicnayn cidna ima joojin karto haddii layga fiican yahayna kayga fiican baa la qaadanaya waa sidaa very simple taa aamin haddaan lagaa fiicnayn cidna kuma joojin karto adaa lagu baahan yahay mar badan waxaad aragtaan iyadoo laga cabanayo waddanku waa qabiil waddanku waa wada ma aragtay isgarasho waddanku waa waxa believe me haddaad wanaagsan tahay if you are good enough nobody will stop you taa meel ku qoro haddaan lagaa wanaagsanayn cidi kuma joojin karto laakiin adu waxaad ka dhigataa xariiqaaga inaan lagaa wanaagsanaa markaad qoranaysid meeshaad rabtid ha ka qiyaas qaadan qofkii kale sidii heblaaye yeeshay ama sidii hebel oo kale ha odhanin maya sidaydaad leedahay sidayda anigu waxaan rabaa inaan waxaa qabsado and I'm working for the best waxa ugu fiican baan qabanayaa dadaal ma yaraysanayo ilaahay waxa ugu weyn baan ka filayaa and I'm going to get it waan helaya marka inaad dib u soo noolaysid is-aaminidaada haddaanad is-aaminsanayn cidna kuma aaminayso taa ogow markaad addu is-aqoonsan tahay karaankaaga aaminsan tahay eed ilaahayna aaminsan tahay markaasaa lagu aamini karaa waxaa la yidhahaa qofku siduu isku maleeyo ayuu dadka usoo ma ogid adu laakiin markaad qof la kulmaysid ama cid la dhaqmaysid waxaad si joogtaa ugu sheegaysaa intaad isla leeg tahay hadalkaagay ka muuqataa intaad isla leeg tahay sidaad u socotay ka muuqataa sidaas waxaad isku haysatid qaabkaad naftaada uga hadlaysid baa muujinaya inta ay naftaada kula leeg tahay adiga aniguna intaasaan kugula dhaqmaya si adaa dadka u sheegay intaad leeg tahay waxaad u sheegtaa markaa inaad qof wanaagsan tahay without you saying it adoon odhanba ayuu dareenkaas soo baxaya laakiin horta is-aamin cidi kaama fiicna qofka kale fiican isagaa fiican adiguna waad fiicanta waad fiicnaan kartaa waad gaari kartaa waxa ugu sarreeya qofi gaari karo aaminsanaantaa soo dhis labadaa shay ma shaqayn karaan shayga saddexaad la-aantii ina maskaxdaadii aad ka adag tahay oo aad si fiican u nadiifisay ood u jihaysay meel adiga kuu shaqaynayso ood rabtid kow iyo inaad is-aaminsan tahay ood ku yimaan qabto intaad haysid iyo intaad leeg tahay iyo ilaahay karaanku ku siiya inaad ku meel mari kartid labadoodaasi kuu shaqayn maayaan haddaanad lahayn kan saddexaad oo ah competence karaan labay noqonaysaa markaa taasina inaad niyaddeedii iyo akhlaaqiyaadkeegii iyo garashadeedii leedahay knowledge iyo skills labada inaad farsamo ahaan wixii qaban karto waan aaminsanahay inaan qabto naftaydana waan aaminsanahay maskaxdayduna way saxantahay laakiin ma garanayo dee ma shaqaynayso
وأكتين إذا كم متى وأكتين competence wuxuu noqonayaa ama aqoon ama xirfad wixii farsamo ahaan kuu suura gelisa inaad qabatid waa tanaad maanta ku jirtaan labadaa shay ee kala soo sameynaysaa tanaad maanta ku jirtaan baad ku xigsiinaysaa marka maxaan idhi A for attitude B for belief C for competence soma Cdu maxay noogu joogtaa inaad karaankeegii leedahay farsamadeedii dhisatid xirfadeedii dhisatid aqoonteedii dhisatid aan lagaaga ogaal fiicnaan waxaad rabtid inaad qabatid hadda waxaan idinku lahaa haddaad fiican tahay oon lagaa fiicnayn cidi kuma joojin karto that means sidaan u qabanayo si ka fiican haddii loo qaban karo dee qofkaasa la dooranaya soo ma marka inaad farsamadeedii xirfadeedii iyo aqoonteediina soo dhisatid aqoonteedii akhlaaqdeedii iyo farsamadeedii those three things disciplinekii xirfadii iyo skillkii waxaa la yidhahdaa knowledge skill iyo attitude that's competence karaanka waxaa la yidhahay waa intaa qofkaasi wuu karaa marka la leeyahay xooggii u bahayaa maa xeeladii iyo xirfadii iyo aqoontiina waa yaawaya karaanku maaha un inaad aqoontii leedahay haddaad aqoontii leedahay oonad qabanayn you're not competent way nagu badan tahay arrintaasi qofkii wuxuu garanayaa ma qabto competent maaha qof karaan le maaha waa bilaa karaan oo ma shaqaystaa la odhanaya marka magacyo badan baa halkaa ka jira ama ma shaqaysato qofka wixii xoog ahaan qaban kara laakiin aan garashadii lahayna competent maaha competency saddexdaas oo isku darsato inaad habfikirkeega iyo akhlaaqiyaadkeega iyo disciplinekeega leedahay oo maskaxdaada u soo jeedo in aqoonteedii aad leedahay oo garanayso iyo inaad xirfadeedii leedahay saddexdaa knowledge skill attitude afraad waxa weeyaan APC bana D soo maaha qofka intaas soo sameeyey wuxuu deliver garayn karaa uu keeni karaa adduunyada ama uu qaban karaa ama uu suurto gelin karaa isbedel macno leh ama natiijo macno leh nolosha ka gaaraya meel kastuu joogana waa qof ka muuqda ogaada koox kasta oo wada shaqaysa 20% oo iyaga kamid ah shaqada badan qabata 20% kamidana 1% oo kamid ah ayaa mastermind oo daba jooga oo waxaan la qabanayo oo dhan fikirkiisa iyo dadaalkiisa ay ku badan tahay you will deliver change marka waxa soo dhan wuxuu ka soo bilaabmaya labadaada indho dhexdooda oo ah waxaan idinku soo gabagabeynayaa ikhwaani halkaas shay halkaashayna waxa weeyaan waxyaabo badan oo filashooyin ah ayaa kuu diiday inaad dariiqeena helno hooyo waxbay kaa filaysaa aabbo wax ku kaa filayaa bulshadu waxbay kaa filaysaa adiguna waxbaa iska filaysaa intaa shantaa filashaba way isjiidhayaan shantaa filashaba way isjiidhayaan filashada ugu fiicanaad raaci kartaa waa waxa aad adu iska filayso muhiim maaha waxa kugu dhaca muhiim maaha waxa hareerahaaga ka dhacaya waxa ugu muhiimsan ee driving force ah ee xoogga adig ku wada waa waxa dhexdaada ka dhacaya it's what happens inside si aad u fikiraysid waxaad aaminsan tahay waxa hamigaaga ah waxa kugu weyn waxaasoo dhan waxa ka wada weyn waxa adiga kugu dhexnoo waxa adiga dhexdaada ka dhacaya ayaa ugu muhiimsan taas raac taa neerjargaree taa ka shaqee taa naa aragtay kobci taa farshaxan ku dar taa waqti sii hana iloobin inaad dadka kale ra'yigooga dhegta u dhigato council qaado wax weydiiso weakness maaha ducfi maaha iyo liidanimo maaha inaad dadka weydiisato caawimo I'm trying to figure this out caawi waxaan rabaa inaan qabto waxaan rabaa inaan fahmo waxaan rabaa inaan sameeyo caawi hadduuna ku caawinayn dhaaf qofka kaloo ku caawinaya raadi ha ka xishoon inaad qof caawimo weydiisato waxaa laga yaabaa wax weyn oo meel weyn ka raadinaysay inuu qofka ku ag jooga jiro istaadkaa si fiican arrintaa u qaadaa dhigay interdependence maanta waxaan joognaa adduunyo aan qof wax loo noqonayn oo koox wax loo noqonayo waxaa la yidhaha haddaad meel fog rabtid inaad gaadhid waad ka tegi kartaa adigu tag cidna kuma haysato dad badan baa aaminsan in lagu dhegan yahay waxaad arki dadkeenu meelaha marka lagu sheekaysanay waxay odhanaya cadowgaaga u noolow ama qof baa kusoo qaraac wuxuu odhanaya cadowga iga jabi cadowgan ina haysta ee maanta oo dhan inagu dhegan waa garlaan nin maalin notebookgiisa aan akhriyay baa wuxuu dhahay ciwaanka buugga waxaa la dhahaa the re-education of a smart idiot
dib wax u baridda khashiinka xariifka saasay noqonaysaa marka waxaan ka helay erey cajiib oo meesha ku dhex jiray wuxuu yidhi I have seen the enemy and it's us enemy-ga iyo cadowga dhan ee laga sheekeeyey waan arkay waana innaga adiguunbaa isku cadow adiguunbaa isku dhegan adiguunbaa fikiro israa wax qabso isla adiguunbaa haddana israa war waa lagula yaabiya iska daa waxa weyn ee laga hadlaya kugu dheganiba it's you waa adiguunbaa adiga ku dhegan marka waxaa la yidhahaa haddaad rabtid inaad meel aadid ama meel fog tagtid waad tegi kartaa iska tag cidi kuma haysato khiyaalkaa waa lagugu dhegan yahay waa lagu soo eegayaa waa lagugu maqan yahay dadba wax kuu diidan waxaasi waa caqiidooyinka faasidka ee qofku uu abuurto ee uu ka dhigto qiil aanu u shaqayn si uuna u shaqayn buu qiil ka dhigtaa ninbaa beri wuxuu yidhi markaad 15 jir meelaha marayso waxa aad kuula weyn ma aragtay in lagu si lagu arko siduu istaad maslaxiyarka istaad siduu yarka ma aragtay heblaay say aragtaa hebel siduu arkaa dadku maxay lahaayeen waxaasa dhagahaaga ka buuxa markaad socotid waxaad socotaa adoo mooday in leer lagugu hayo markaad meelaha 40 jir gaadhina buu yidhi waxaad aamintaa Soomaalida maamaadeedii ahayd dani waa seeto dantaadii adigaas baranaya hadday kula gasho waad ka galaysaa kuuliga hadday kula gasho inaad xamaasho waad ka shaqaysanaysaa waxba kaama gelisa lagu arko adiga dantaadii baa isbartay nin isogol ama gabadh isogol baad noqotay wixii dantaadu ku jirtay aad leedahay noloshaadii baa ku soconaysa ayaa ku khasbantay waxaad qabsanaysaa marka 60 iyo wixii ku dhawaad gaadhana baa leeyahay waxaad ogaataa inaan cidiba kugu mashquulsanayn adigu inaad buuq siraadanayso waa leeyahay maqan yahay waa la haystaa waa la nicib yahay waxba la diidan yahay marka haddii aad rabtid buu yidhi ninkaasi inaad meel fog tagtid keligaa tag waa sax arrintii team way kan u socdaay saad ka hadlay keligaa tag laakiin haddaad meel sare tagi rabtid baa leeyahay haddaad meel sare inaad tagtid rabtid koox baa la raacaa in dhulka kor loogu kaca ma fududa gravity baa jira soo ma ogidina shaygii kor loo tuuraa hoos bas kaga soo dhacaya cufis jiidad baa jira ku soo jiidanaya ma fududa inaad kor u socotid keligaa waa inaad qof irkataa waa inaad barataa xirfadaha ugu mudan ee qofku markuu isbedel raadinayo uu sameeyo waxa kamid ah la making the most out of other people inaad baratid qofkan ku ag fadhiya karaankiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo resourcekiisa si looga faa'iideysto ma isagu inaad ku mashquulshido isagu wixii raadisid inaad adiguna wax sameeysid caadiyan waxa la marka business laga sheekeynayo give before you take waxba la bixiyaa intaanad wax qaadan marka interdependency-ga ustaad ku hadlay waxa weeyaan adiguna wax bixi qofkaad wax siinaysidna wax ka qaado baro sida dadka aqoontooda iyo xirfadooda iyo garashadooda loo maalo looga faa'iideysto resource-kooda loo isticmaalo adiguna kaagaad ku daraysaa isaga we're becoming some people together adigu inaad keliga wax ka dhex noqotid bulsho aan waxba ahayn wax ka qurux badan inaad bulsho qurux badan dhexdeeda adiguna ka qurux badan tahay sama daddan ma yeelanayso guushu haddii dhammaan dadku fashilmaan oo keligaa guulaysato xitaa sustainable ma sii soconaysa xitaa adaa lagugu soo wareegi that's why adduunyada maanta criminals maaragtay crime rates iyo dambiyadu sii badanayaan because resources kii khayraadkii oo dhan ayaa ku ururay dad yar oo kooban oo 1% bulshada dhexdeeda ka dadkii kalena ciiday cunayaan marka ma ciidaan cunay isagoo maaragtay qof kaliya haysta hantidii ummadda oo dhan maya ma cunaysidee that's why there is crime rates that's why maaragtay isdilka iyo isnacaybka iyo adduunyada masiiboonka ka socda ay u badanayaan marka waxaad aamintaa inaad adigu guulaysato qofka kugu xigaana inuu guulaystaa that's what life is about saasa ku qurux badan tahay baasho dhadhan ku leedahay ma ku qurux badna inaad keligaa un isboqortood keligaa guulaysatid ya taasaan idinku soo gabagabeynaya markaa waxaad ka fikirtaa inaad wada shaqaysaan design thinking-ka wax la yidhaahdo maaragtay marka wax la nashqadaynayo la dhisayo la hindisayo la iktiraacayo si loo bedelo maaragtay arrin dhibaato bulshada jirta waxyaabaha ugu muhiimsan taasaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan taan idin sheegayaa ka mid ah waxaa la yidhaahdaa radical collaboration 5 step bay leedahay stepka ugu muhiimsan ee ugu dambeeya kaasa radical collaboration waxaan ka sheekeynaynay in kow maskaxdeena aan awoodeedii qabsano oo inagu maamulno oo inagu qaabayno waxaan ka sheekeysanaynay inaan is-aaminaad nafeed dhisano waxaan ka sheekeysanaynay inaan karaankeena iyo aqoonteena iyo xirfadeena dhisno waxaan ka sheekeynaynay sidaas inay tahay sida isbedelku ku dhasho soo saamahayn marka waxaan rabaa inaan qaadano dhowr daqiiqo oo ah is-aaminsanaanta
iga daba dhaha mar ila dhaha ha iga daba odhane ila dhaha waan noqon karaa waan noqon karaa dadka qaar baa farta saa u yara jilcinaya waan noqon karaa si xoog lowdhe waan noqon karaa weli ma maqlay waan noqon karaa waan noqon karaa waan u qalmaa waan helayaa waan ku dadaalayaa waxba ma dib dhiganayo ilaahay baa ila jira isma dhiibayo waa markaygii wayna kaa thank you so much sanduuqa okay wax yar waa ruuxayna damiir waa isku walaaqay si ay isu dhex galaan okay nasiibku waa shay cajiib ah waad u jeedaan waraaqda koowaad waraqaha waxaa ku qoran number waxa uu yeerayaa waxaa ku qoran 47 40 71 58 u sacbiya 8 okay gabadhaas number 1 way waxay haysay Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery one full scholarship wow aad iyo aad ayay u nasiib badan tahay nambarka labaad baa marka doctorku soo qabtay ayaan u yeerayaa furuhu waa 7 35 27 waa ardage waa gabar gabdhaha aad u nasiib badan yihiin baa u malaynayaa okay doctor Hasan inka verification-ka la marinaya laakiin waxa uu soo baxay Bachelor of Procurement and Logistic Management oo ah half scholarship waa tahay verification-ka ayay maraysaa ardayadaas waxaan u yeerayaa ardayga ku xiga ayaa hadda baaraynaa doctorka ardayga ku xiga soo saaray ardaygan si uu hubiyo xitaa furihii waddanku ku diray okay waa fure 6 29 87 eber 8 fure 6 29 87 eber 8 ma jooga ardaygaas gacanta taagan qofka hadda adiga ardayga ma jooga hadduu joogo gacanta taagto qofka asaga lambarkiisa leeyahay si loo soo kiciyo okay ardaygaas uu maqan yahay u malaynayaa lambarka wali ardaygaas ma jooga waa fure 6 29 87 eber 8 already waa balsii baarayba okay ninkaas marka ma joogo nambarka ku xiga waa fure 7 57 97 54 gacanta taagaysa gacanta gacanta taag haddaad joogtid fure 7 57 97 54 gabarba okay waa gabar miyaa بسم الله قبله ما ياسين بسوا أخرسته وسود ويننا وسود ويننا قبدا أفراد وحياة شيء Bachelor of Procurement and Logistic Management أو half scholarship سود و تهاي أرضي كل حاجة أرضي الشناد نمبر كيسانو يرينا وفرلح 55 أما فرلح شن 8 ardaygaas waa kee waa tahay ardaygaas number 5 wuxuu helay Bachelor of Medical Laboratory waana half scholarship verification-ka ayuu marayaa ardayga 6 baan u yeeraynaa ardayga 6 doorku soo qabtay ardayga 6 waa fure 6 20 iyo 4 59 fure 6 20 iyo 4 59 wow caawa gabdhaha wata gabadhaas waxay heshay Bachelor of Public Health oo full scholarship
aad ayay u nasiib badan tahay verificationka ayay maraysaa doctorku wuxuu noo soo saarayaa nambarkiisa ugu dambeeya ee nambarka doctoraad waa tahay ma wiil buu noqon doonaa ma gabar buu noqon doonaa qofka nasiibka leh ee furaha dalka ka hormariyay si uu u hubiyo inuu nambarkiisa mid kale ku qaldamin wuxuu wataa fura 82 konton 99 yaa weye waa tahay ninkaas ardaygaas 7 wuxuu helay Bachelor of Human Resource Management oo half scholarship intaadan baan laylada anigu ka tagi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga intaadan baan laylada anigu ka tagi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga marka waa aad uga mahadcelinaynaa dhammaan intii kasoo qayb gashay waxaan mahadcelinaynaa muxuu ahaa khiyaartii halkan kala hadlay ardada oo runtii wax badan ku biiriyay waxaan rajeynayaa in la weelayn doono lagana faa'iidaysan doono waxaan rabaa inaan tilmaamo hadafka loo sameeyey muxuu ahaa barnaamijkan waqtiga nasiibka ee ardada sanadka waxaad ogtihiin nidaamkii dugsiyada sare imtixaanaadkoodii saameyn badan baa waxaa ku yeeshay xanuunka coronavirus waxaana ardada inteeda badnayd ay noqotay darajada ay ku baasaan ardadii fiicneed wax badan keeni jiray iyo kuwii kaleba darajad aad u hooseeyo oo laga yaabo inay maaragta muxuu ahaa dad badan ay saameyntaasi ay yeelatay si marka wax un community loogala qayb qaato baa meeshii aan dooran lahayn anoo dhihi lahayn iskuul hebel ama cid hebel ama arrin hebel intaasaa la siiyey waxaan dooranay inaan maaragta muxuu ahaa intii contribution aan geysan karno balaan fursad loo siiyo ardayga iyo nasiibkiisa annagoo diidayna inay dhacaanin wax baayasa yacni meel ku habboonayd iyo meel aan ku habboonayn inay wax kala maraanin si ayse taas u dhicin baa waxaan nidhi marka ardada isaga iyo nasiibkiisa qofkii wax ku hela ha ku qaato intaa waxaa dheer waxaa ogtihiin marka laga hadlayo waxyaalaha maaragta muxuu ahaa nasiibka ama scholarship ha ahaato ama haaf ha ahaato ama mid wax laga dhimay ha ahaatee waxay leedahay oo u baahan tahay qofka doonidiisa iyo in badan oo ka mid ah iskuma beegmaanida waxa uu helayo ama fursadda la hayo iyo qofku waxa uu jecel yahay iskuma beegmaanin halka arrin anaga aslan waa ka cadaalad samaysan waxa weeye inaan kulliyad walba medicine ugu qaalisanayd full scholarship aan ka bixinay half aan ka bixinay ilaa kulliyadaha inta kale oo dhan kulliyad walba macnaha wixii ay awoodi kadhay oo ay qaadi kadhay ama kuraas la isleeyahay bulsho ahaan waa la bixin karay waa lagu bixiyay halkan waxaan rajeynayaa marka guulaystayaasha oo maaragta muxuu ahaa in ay xafiiska yimaadaan ayna u yimaadaan in maaragta muxuu ahaa committeega qaabilsana arrintan qof walbana dokumentiyadiisa iyo maaragta muxuu ahaa uu soo qaato waxyaalaha looga baahan yahay ardaynimada loona sheegay markaa ciddii ay laga yaabo inay isdhaafeen muxuu ahaa takhasuskiisii uu rabay iyo muxuu ahaa iyo baahidiisa yani wuxuu helay baan leeyahay nasiibkiisa iyo wixii uu rabay annagoo ka ambaqaadaynaa in halkan laga yidhi ardaygu yuusan wuxuusan rabin uusan baran ma doonayna arday duruuf waxa kan aada heshay baad ku khasbanaatay in la yidhaahdo laakiin waxa aan doonaynaa waxa weeye bal in sidii loo xallin karo iyadoo ay haddana xadidan tahay oo kuraasta kulliyad hebla ka bannaan ama department hebel ka bannaan ay xadidan tahay oo adag tahay wax ka bedelku haddana waxaan rabnaa maaragta sidii wax loo xallin karo in loo xalliyo hal arrin oo aslan mamnuuca waxa weeye arday scholarship helay ama nasiibkiisu wax siiyey in uu arday kale oo aan waxba helin uu wax kaga maaragta muxuu ahaa wax loogu bedelo taas waa waxaan marna dhacayn laakiin waxaanu kulliyadaha ka xallin karno waxaanu laba arday oo midba wax uusan rabin kii kale uu helay laga xallin karo in maaragta labada arrimoodba aan waxaan xallin karna aan xallino intii tabarteeda insha allah aad iyo aad baa mahadsantihiin magacayga waa hodan muuse cismaan
run ahaantii caawa farxaddeeda ma soo koobi karo alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay hamigayga waa ii suurtageliyey run ahaantii kuliyadda alisiiyana waa mid aan ku haminayo in badan waxaana mahad iskale allah subxaana wa tacaala hamigayga ii rumeeyey waxaan rajeynayaa inaan heer sare ka gaaro insha allahu magacaygu waa ibraahim maxamed nuux waxaan ka mid ahaa ardayda caawa ka qayb gashay barnaamijkan ay jaamacaddu qabatay oo lagu dhiirigelinayay dhammaan ardayda dhammaystay sanadkan dugsiyada sare runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka tijaabi nasiibkaaga oo runtii jaamacaddu ay sanadkan soo kordhisay waan ku dhiirigelinayaa jaamacaddu inay sanadkan iyo sanadada dambeba ay ardayda ku dhiirigeliso si ay u tijaabiyaan nasiibkooda runtii haddaan si khaas uga hadlo waxaan ku hadlayaa afkii ardayda nasiibkoodu uusan saacidin oo caawa nasiibkoodu mataqaanaa uusan u soo bixin inay scholarshipka ay ka qayb qaataan ama full helaan ama half helaan waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardaydii 70 kor u dhaafisay ee caawa nasiibkooda halkan si fiican ugu soo bandhigay qaarna full scholarship helaan qaarna half scholarship helaan waxaan rajeynayaa fursaddaas si fiican uga faa'iideysan doonaan waxaan mar labaad mahad celinayaa maamulka jaamacadda oo dhammaan mataqaanaa arrintaas ka dambeeyey aad iyo aad ba u mahadsantihiin assalaamu calaykum